each one of those memories are connected to people and things at certain times and places. And if the brain is a record of the past, the moment they start their day, they're already thinking in the past. Each one of those memories has an emotion. Emotions are the end product of past experiences. So the moment they recall those memories of their problems, they all of a sudden feel unhappy, they feel sad, they feel pain. Now, how you think and how you feel creates your state of being. So the person's entire state of being when they start their day is in the past. So what does that mean? The familiar past will sooner or later be predictable future. So if you believe that your thoughts have something to do with your destiny, and you can't think greater than how you feel, or feelings have become the means of thinking, by very definition of emotions, you're thinking in the past. And for the most part, you're going to keep creating the same life. So then people grab their cell phone, they check their WhatsApp, they check their texts, they check their emails, they check Facebook, they take a picture of their feet, they post it on Facebook, they tweet something, they do Instagram, they check the news, and now they feel really connected to everything that's known in their life. And then they go through a series of routine behaviors. They get out of bed on the same side, they go to the toilet, they get a cup of coffee, they take a shower, they get dressed, they drive to work the same way, they do the same things, they see the same people, they push the same emotional buttons, and that becomes the routine, and it becomes like a program. So now they've lost their free will to a program, and there's no unseen hand doing it to them. So when it comes time to change, the redundancy of that cycle becomes a subconscious program. So now 95% of who we are by the time we're 35 years old is a memorized set of behaviors, emotional reactions, unconscious habits, hardwired attitudes, beliefs, and perceptions that function like a computer program. So then a person can say with their 5% of their conscious mind, السلام I عليكم want to be ورحمة الله healthy, I وبركاته. want to soo be dhawaada happy, I want to be free. But the body's on a whole different program. akhiyaarta soo So then dhawaada how do you begin to make those changes? Well, you have to get beyond the analytical mind, because what separates the conscious mind from the subconscious mind is the analytical mind. And that's where meditation codkayga comes see u in, maqashaan because you haddii can aad teach ku people jirto life to practice how to change their brainwaves, slow them down. And when they do that properly, they do enter the operating system where they can begin to make some really important changes. So most people then wait for crisis or trauma or disease or diagnosis. They wait for loss, some tragedy to make up their mind to change. And my message is, why wait? And you can learn and change in a state of pain and suffering, or you can learn and change in a state of joy and inspiration. I think right now, the cool thing is that people are waking up. Most people spend 70% of their life living in survival and living in stress. So they're always anticipating the worst case scenario based on a past experience. And they're literally, out of the infinite potentials in the quantum field, they're selecting the worst possible outcome. okay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu soo dhawaada dhammaantiin akhyaarta hey waxaan rabaa marka hore inaan idin salaamo salaanta islaamka dhammaantiin meel walba aad joogtaan codkayga saa u maqashaan asxaabta soo gashay codkayga waa clear miya see lii maqlaa please comment calaykum assalaam okay maasha allah codkayga inaa maqashaan aan rajaynayaa haddii aa codkayga maqlaysa ii soo sheeg okay maasha allah thank you so much guys aad iyo aad aa u mahadsantihiin meel walba aad joogtaan caalamka waan salaamayaa salaan qiimo badan by the way shaatigan iyo taagan isku soo baxaya horta angelo maasha allah dadka taaga maaragtay sida loo xirto youtube-ka ka barta ma ku jirtaa maasha allah soo dhawaada akhyaarta meel walba aad joogtaan waxaan rabaa maante barnaamij yar oo anigoo aan dheereyneyn inaan ka hadlo xoogaa aan research fiicanna ku sameeyey runtii saameynaya dadka maaragtay USA ku nool saameynaya ayaan rabaa inaan qodobo yar aan ka soo qaato qodobadan oo very important ah aan isleeyahay waddankan
markaan imaanay anagoo maaragtay qaxooti ah kuwa ku dhashay marka laga reebo dadka majoritygooda waddanka yimid waxaa weeye ama asylum ama qaxootinimo ama shaqaale fursad noocaasay ku imaadeen markaa waddanka timaado waxaa lagula dhaqmayaa qof waddanka ku dhashay oo kale systemka waddankana yaqaano oo kale lagula dhaqmayaa dad badanna information badan kuma siinayaan marka inta badan waxay u badan tahay dadka cusub immigrantiga waddankan inay ku dhacaan bad credit waxyaalo yar yar oo mataqaanaa creditkooda ka hadlaynaya inay ku dhacaan sida telephone bill ama koronto ama mataqaanaa credit card yar oo $300 iyo waxaas loogu bilaabay waxyaalo yar yar oo markii laisku soo aruuriyaba aan $1,500 $2,000 aan gaarin ayaa halka intay ku dhacaan bad credit qofka ka dhigo in qofkaas ay ka xanibto ay ka hor istaagto fursado badan uu ka faa'iidaysan lahaa waddanka gudihiisa laakiin waxaa cajiib ah akhyaarta aan rabaa in la wadaago sharciga waddanka u yaala siinaya awoodda siinaya shirkadaha waaweyn ee mataqaanaa dadka deynta siiya in ay ka dhigaan qofkan ay collection u diraan kadibna ay bad credit ka dhigaan sharciga siinaya sharcigaa sharci la mid ah ayaa qofka shacabkana uu leeyahay xaquuq u gaara oo uu kula dagaalami karo shirkadahan iyo mataqaanaa haddii ay credit ka hadlayaan now kambaniye waxaa jira middle man oo kale uu mataqaana u actigareeya oo isku dayaya inay mataqaanaa creditkaadan ku nadiifinayna ku dhahaan qaar saxa iyo qaar qalad labadaba isugu jiraan laakiin taas waxaaba ka fiicanba qofka haddii uu qof maaragtay wax akriyo waxaa la qoran yahay inuu isaga samaysan karo ayaaba mataqaanaa ka fudud marka muhiimadda ay leedahay ma raba inaan waqti badan ku bixiyo inuu qofka maaragtay creditkiisa waddankan hadduu joogo the bottom line waxaa weeyaan waa u baahan tahay inaad mataqaanaa creditkaaga inay fiican tahay guryaha la kiraysanaya ku xiran tahay meelaha qaarkood meelo badan kirada guriga ee aad degan tahay haddaa guriga aad degan tahay maanta arabto inaad ka guurto guri kale arabto inaad u guurto shirkado badan baa waxay fiirinayaan historygaada iyo mataqaanaa credit historygaada ay fiirinayaan ama scorekaada ay fiirinayaan credit scorekaaga haddaa guri iibsanayso sidoo kale gaari maanta hadduu soo baxo oo mataqaanaa no interest ah hadday shirkadda ay xaysiin samaynayso no interest creditkiisa qofka mataqaanaa fursad buu u helaya okay marka saasay u fiican tahay in qofka uu ahmiyad gaara inuu siiyo inuu qofka creditkiisa inuu hagaajiyo markuu waddankan ku nool yahay tusaale maanta gaari baa rabta inaad qaadato rental car ah rental carrada majoritygooda waxay u badan yihiin inay ku weydiinayaan credit card credit cardkan wuxuu u baahan yahay inuu credit historygaada inuu fiican yahay ayuu u baahan yahay marka isku xiran yihiin waa silsilad isku xiran weeyaan from dhankii guriga nolosha to travelingki dadka waa in ay bartaan oo ay ka faa'iidaystaan sida ay creditkooda ay ku dhisi lahaayeen marka halkan waxaa idinku siinayaa tips yar oo aan soo arooriyey oo aan isleeyahay tipka informationkan qofka wuu samayn karaa iyo waxyaalo aniga xataa aan kusoo jabay oo markii aan rabay mataqaanaa inaan hagaajiyo creditkeyga markaan rabay caqabadihii aan la kulmay iyo waxyaala marka saddexda shirkadooda horta ugu waaweyn dabcan waan sheegi doonaa insha allah laakiin intaanan shirkadaha u gelin waxaan rabaa inaan isku fiiriya laba shay inaa adiga aad samaysato creditkaaga oo hagaajisato stepska aad qaadayso iyo haddii aad shirkadaha mataqaanaa creditka kalingareeyo aad u shaqaalaysiisato lacagta kaaga bixi karto ilaa iyo 5-6 shirkadood oo aan personal u wacay kharashka ay qaataan qofka average wuxuu u dhexeeyaa 80 ilaa iyo $120 bishii inay qofka ka qaadaan oo ay bil walbo hal case ay dispute ku sameeyaan now dispute-ka wuxuu yahay iyo halka case wuxuu yahay kulli waan sharxi doonaa insha allah laakiin shirkadaha price-kooda saas ah adiga inaad samaysatana inta ay shirkadahaas kuu sameynayaan middleman-ka ah inaad adiga samaysatana waa yeeli kartaa waa samaysan kartaa waa tahay so marka let me go back to point 1 adiga markaa rabto inaad samaysato maxaa xaq u leedahay tusaale horta the first thing waxaa weeyaan inaad samayso inaad soo daabacato annual credit reportkaaga inaad soo daabacato markaad soo daabacato ayagoo free ah ayaad ka helaysaa online-ka markaad soo daabacato soo print garaysato gurigaada keensato then aad fiiriso adiga credit fiican inaad yeelato maxaa horta kaa hortaagan meeqa shirkadood ayaa meeshan ku jiro historygaada ku jiro oo ku oranaya lacagtaan qofkan ku leenahay lacagtaan uu bixin waayey maybe waxaa laga yaabaa 24 hours gym oo kale
inaa hadda kahor intaa sign up garaysay contract ay mataqaanaa ku geliyeen contractiga markay ku geliyeen aad adiga contract inuu yahay aad ogeen kadibna mataqaanaa aad tiri aniga contractigan ma bixinayo gymka ma tago iyo cancela ee ku dhaheen kaama cancelayno 10 bilood aa kuu dhiman 2 bilood kaliya isticmaashay 10 bilood adoo aan tegayna isku dayay kaarkaada inay lacag kala baxaan lacagtii oo u socon weysay waxay ku direen collection agency ka iibiyeen mataqaanaa lacagtii ay dhaheen qofkaan aan deen ku leenahay walow iyagoo aan deen kugu lahayn then mataqaanaa lacagtii ayaa collection agency-ga kusoo wacay waxay ku dhaheen mataqaanaa lacagtaas haddaa bixin weyso waxaan kuu gelinaynaa mataqaanaa historygaada aan kuu gelinaynaa waxay la xiriireen mataqaanaa kambaniyada ay la xiriireen ee dhan qofkan lacagtaasuu naga qabaa naga siiya adiga mataqaanaa way kula soo xiriireen wax communication way kaa waayeen saa darteed ayay historyga kugu gashay marka now haddii aad gadaal u laabato waxaan faultigaadi ma aha because systemka waddanka marar badan waxaa jira contractyo lagu gelinayo aadan ka warqabin telefoonka biilkiisa ka mid a gymka ka mid a waxaa ka mid a mataqaanaa kaar bangi ah kasoo qaadatay credit card ka mid a bangi hore aa iska xirtay overdraft lacag ay mataqaanaa kugu charge gareeyeen si khaldana ka mid a waxaa ka mid a mataqaanaa waxyaalo badan baa qofka historygiisa loogu gelinayaa asagoo aan aqoon u lahayn kadibna kambanigaas wuxuu ka gadayaa mataqaanaa collection agency way kusoo wacayaan lacagta inay kaa qaadaan isku dayaan way kuweynayaan then waxay u dirayaan kambaniyadan mataqaanaa sida Equifax iyo TransUnion iyo ay u dirayaan markay u diraan halkaan aan leeyahay sug markay u diraan adiga maxaa haysataa maxaa awooda oo aad leedahay haysataa marka the three major credit bureau saddexda shirkadood ee ugu waaweyn ee mataqaanaa qofka historygiisa creditka hayo mid ka mid ah ayaa account ka samaysanaysaa waxaa ka samaysanaysaa mid ka mid ah Equifax, Experian iyo TransUnion saddexdaas u kala baxaan mid ka mid ah account ka samaysanaysaa mid walba waxay ku ogashahay in aad sanadkii hal mar aad daabacato annual credit reportkaaga historygaaga waxa adin lagugu leeyahay waxa kaa hortaagan inaa mataqaanaa credit card oo no interest inaa qaadato waxa kaa hortaagan baabuur cusub inaad soo iibsato waxa kaa hortaagan guri inaad kiraysato waxa kaa hortaagan guri inaad iibsato waxyaalahaasoo dhan ayay fiirinayaan marka historygaada markaa ku aragto annual credit reportka markaa ku aragto kasoo qaad 3 shirkadood waayo waxa ku dilaayo ama 4 shirkadood weeyaan ama mataqaanaa saan then adiga number 1 waxaa xaq u leedahay shirkadda meesha ku qoran inaa intaa telefonkeeda qaado aa wacdo aad tiraahdo lacagtan ay igu leedihiin aniga hebel baan ahay lacagtan aad leedihiin waan kugu leenahay soo caddeeya original documentigii aniga aan saxiixay oo contractiga aan idinla galay ii soo dira marka qaabka u dhexeysa waxaa waaye markaad TransUnion oo kale account ka furato account wuxuu ku siinaya option ah kambanigaas inaad dispute ku samayn karto markaad dispute-ka aad kala garayso then reason-kaaga lagu leeyahay sheeg reason-kaaga waxaa weeyaan anigu lacagtan maba ka warqababa gymkan ay sheegayaan ama telefoonkan ama waxaan ka warqaba maba ahaba ha soo caddeeyaan TransUnion kambanigay u dirayaan lacag buu naga qabay lacagtina uu bixin waayey wuxuu soo codsaday in aad usoo dirtaan original documentigii now tusaale yar meeshan u fiirso tusaale yar haddii maanta shirkad kasoo qaad T-Mobile oo kale markaa waddanka imaato kale intaa gashay aad lacag overcharge ay kugu sameeyeen lacagta ay kaa waayeen kambani kale oo telefoon u bedelatay history ay geliyeen T-Mobile waqti uma hayso ee mataqaanaa dadkan lacagaha ay ku sheeganayaan ay kaga guraan kambani kale ayay kasoo qaad $400 ay kugu lahaayeen tusaale ayay sheegteen inay kugu leeyihiin 400 kuguma lahayn laakiin way sheegteen inay kugu leeyihiin marka 400 adiga waa isweyseen telefoonkaadi ayaa bedelatay agency-ga waxay kaga gadeen 400 ay waxay dhaheen 400 hebel aan ku leenahay haddaa $100 ama $50 na siisaan idinka ka doonta marka kambaniga laga gaday agency kale weeyaan oo lacag kuguma lahayn iyaga qoliya kasoo gateen marka sida deedka lacagta deynta ama deedka dadka lagu leeyahay sida alaabta hadda aan u kala gadanno iyo kombiyuutarada iyo telefoonada ayaa loo kala iibsadaa wuxuu leeyahay 1,000 qof aan hayaa 1,000 qof lacag waxaan ku leenahay 200 oo kuna haye haddaad 25 kun na siisaan idinka mataqaanaa waxa ka heshaan isku qaba marka kambanigan deed mataqaanaa kambanigan collection agency-ga risk waxay qaadanayaan ah inay lacagtan ay original mataqaanaa creditorkii inay lacagta ay ka iibsadaan ayagana ay dadkan habeen iyo maalin ay telefoon ka wacaan ay haraas gareeyaan si ay mataqaanaa lacagtii ay uga soo saaraan iyo penalty iyo interest iyo wax walba inay charge gareeyaan dadka qaar marka way cabsanayaan qofka waxaa leeyahay waa lasoo wacayaa waxaa leeyahay dhegeyso haa waxay ku gelaysaa waxaan la xiriirinaa kambaniyada 3 major bureau la xiriirinaa collection agency aan nahay lacagta degdeg hadda u bixin weyso waa ku suud gareynaynaa qaar ku dhahayaan
low sudan ku keenana qaar waxay ku dhahay mataqaanaa waan ku mataqaanaa creditkan ka haleynayna intaasoo mataqaanaa pointia kaa go'eyso credit scorekaaga habeenii maalin lagu soo wacaya waa lagu mataqaanaa waa lagu haraas garanaya marka haddii marka credit reportkaaga haddaa soo print garaysato oo aad TransUnion oo kale account ka furatay this is something aniga I did so ma a few years back haddaa TransUnion ka furato account oo aad gasho then combanygii aragtay waxaad tidhahday dispute markaa tiri combaniga marka waa la xiriiray waxaa leeyahay hebel adresskiisa waa kana magaciisa waa kana telefonkiisa waa kana wuxuu u baahan yahay caddeyn inaad soo caddeysaan original documentigii inaad usoo dirtaan now combanigan they don't have any original document oo signaturekaaga ku qoran tahay oo laleeyahay 400 ninkan lagu leeyahay meelaa ku saxiixda ma jirto sababta lacagtan lacag waxay original ka imaatay gym membership oo aad gashay oo mataqaanaa contract lagu hoos qariyay ama overdraft fee ka imaatay ama telephone bill oo mataqaanaa expire oo aan overcharge sameynay ka imaatay you know how they this so many fees oo maaragtay qofka laga qarnayo hidden fees la yiraahdaa oo dadka confuse ay ku ridayaan marka waxaas oo dhan ayay ka imaatay marka waxaas ma laha original document oo adiga aad tiri T-Mobile $400 ay u leeyihiin aad u saxiixday ma jirto now company marka waxay ku dhahayaan ku soo wacay waxay ku leeyihiin 30 maalmood ay haystaan marka 30 maalmood haddii ay ku proof gareyn waayaan inay lacagta kugu leeyihiin companyga TransUnion by law wuxuu qabaa in ay mataqaanaa ay ka saaraan disputekaas oo ay dhahaan qofkan wax lagu leeyahay ma laha the more ay mataqaanaa disputeka ay ka saaraanna the more scorekaada u kacayo weeyaan marka waxaan ka hadlayna waxaa weeye waa wax 15-20 minute qaadanayaan weeye wax mataqaanaa waxaa laga yaabaa caqabadda ugu weyna maanta ku hortaagan haddii aad maanta jeceshahay qof ganacsi raba inuu sameeyo kale oo qaadan lahaa credit card oo no interest ah qaadan lahaa inay kaa hortaagan tahay 4 iyo 5 accounti oo min $100 iyo 400 iyo 500 iyo $1,000 in ay ku guuleysato adiga mataqaanaa aad bixin laga saaro now taas it's very simple mataqaanaa to do it now company 30 maalmood haddii ku soo cadeyn waayaan number 1 way ka baxday marka automatically disputekaas waa laga saaray meeshii okay on the other hand hadday jirtay inay ka soo saaraan document hadday soo saaraan caddeynaya 100% inay lacagtan kugu leeyihiin oo lacag sax ay tahay oo ay submit gareeyaan TransUnion ama Equifax ama Experian ay u diraan ay copy u diraan adigana copy ay ku soo diraan copyga uu ku imaado akhriso lacag sax lagu leeyahay inay tahay dan waa wacaysaa payment plan la gelaysaa waxaa leedahay lacagta meeqa waay $200 soo aha bishii $100 la siinaya haddii aad payment plan u bilowdo oo aad ku heshiisaan ay aqbalaan dan way kaa saarayaan TransUnion aan la xiriiraysaa companygaas waan xalisanay payment plan u sameeyey lacagta waan siiyaa monthly plan siiyaa so kuma gelayso markaas qof responsible aad tahay kuma gelayso historyga way kaa saarayaan okay so that's the second marka adiga mar walba waxaad taagan tahay win-win situation aad taagan tahay by law adiga lagu support gareynaya as a mataqaanaa US citizen ama permanent resident ama qof mataqaan nooca doonta how haddii uu bad credit ku jirto sharciga qoran ee waddanka u yaala adigu ku support gareynaya inta badan moodan mataqaanaa companyga deynta kugu leh ama saddexda major bureau oo maaragtay laakiin dadkii ma raadiyaan informationkii ma raadiyaan ma dabagalaan ma sameeyaan xataa hadday kugu adag tahay companiyo waxaa jira oo middleman sameeya oo iyaga xataa waqtiga kugu dheereysanayaan laakiin marka hore waxaa sameynaysaa waxaa soo print garaysanaysaa annual credit reportkaaga oo freega ah ayaa soo print garaysani markaa soo print garaysato inta account lagugu leeyahay fiirinaysaa tusaale haddii kasoo qaad 7 account haddii lagugu leeyahay 7 account markaa kambaniyada middlemanka la xiriirto waxay sameynayaan mid halkii accountaba hal bilay mataqaanaa dispute garaynayaan iyaga waxay rabaan lacagta inay kugu dheereystaan of course soo ma garan adiga waa dispute garayn kartaa 2 iyo 3 bil walba waa dispute garayn kartaa laakiin iyaga markay kuu sameynayaan waxay ku leeyihiin $120 kaa qaadanaa bishii ama $80 kaa qaadanaa depending average intaas u dhexeeyaan waxay ku leeyihin waxaan ku judge garaynayaa intaas now it's good haddii adiga mataqaanaa aad ka caajsan tahay oo aadan samayn karin just telefonkaa qaadanaysaa magacaada u sheegaysaa social securitygaa u sheegaysaa informationkaada u sheegaysaa waxay soo print garaynayaan credit reportkaaga markay soo print gareeyaan way kuu sheegayaan waxay ku leeyihin okay 7 account weeyaan account lacagtaas kugu leey kaa waxaas kugu leey kaas kugu leey each one of them na dispute aan ku sameynaynaa waxaan codsanaynaa mataqaanaa original document inay kuu soo diraan 30 maalmood qaadanaysaa every month markay ku soo wacayaan waxay ku leeyihiin account hebel waa kaa baxay account hebel waa kaa baxay account hebel waa kaa baxay now markuu kaa baxo app waxaa soo degsataa oo FISCO score FISCO FISCO scoreka soo degsanaysaa the more uu disputekan adiga weyn gareyso uu kaa baxo the more scorekaada kor u kacayo waxaa laga hadlay scorekaada inuu 500 waxyaalahaasoo kale u yahay hadduu creditkaa halaysan yahay tusaale scoreko kale tusaale 580
to 669 oo kale between 580 to 669 credit scoreka qofka haysta waxa waaye it's considered as a fair. qofka maaragtay 670 to 739 haystana waa considered as a good credit. qofka 740 to 799 haystana waxa waa very good. qofka 800 iyo ka badan haystana waa excellent weeyaan. marka noocyadaas u kala baxaan. marka waa fiirinaysaa aapkii dispute-kana kaa baxay meeqa waa scorekaada meequu maraya. okay 500 uu ahaa now 550 maraya 580 maraya meesha aad taaganta waa garanaysaa. and then laba account saddex account kale haddana 2-3 months kale aad dispute ku samaysay wuu kaasii baxay 670 aad tagtay 670 markaad tagtay waa kasii socotay. marka those are the steps mataqaana aad qaadi karto oo dispute-ka ku samayn karto. marka labada option aad haysataa inaad adiga dispute garayso iyo inaad kambaniyadan ka shaqeeya aad tiraahdo ii dispute gareeya. now the other thing aan rabo inaan ka hadlo waxaa weeye either company Experian, Equifax, TransUnion midkaa rabta samey. saddexdoodaba haddaa account ka samaysato mid walba waa ka arki kartaa credit scorekaaga credit historygaada. saddexdaba inaad ka samaysato way fiican tahay sababtay tahay inaad isku fiiriso saddexdooda waayo waa saddexda majorka ah. company waxaa laga yaabaa collection agency inuu u report gareeyo inuu kugu report gareeyo TransUnion iyo Experian laakiin uusan kugu report gareyn mataqaana Equifax ama inuu Equifax kugu report gareeyo oo labada kale uusan mataqaana kugu report gareyna laga yaabaa. now those are taasa marka waxay sababaysaa inaad saddexda agency ee ugu waaweyn inaad isku fiiriso waa very very important weeyaan. okay on the other hand tusaale arrinkan maxaa horta igu leeyahay inaan baaritaan ku sameeyo. waxaa jiro tusaale dad badan oo e-commerce ku jiro ayaa jiro oo mataqaana alaabo ka iibsado Alibaba oo kale meelo badan. program waxaa jiro Alibaba uu leeyahay oo ah haddii aad business leedahay America ay ka register garaysan tahay oo aad rabto alaab inaad bilaawdo waxay ku siinayaan credit card oo no interest ah oo between 5,000 to 10,000 15,000 based on mataqaana credit scorekaaga based on credit scorekaaga. form ay buux ku leeyihiin social security-gaada gelinaysaa addresskaada gelinaysaa income-kaada gelinaysaa no interest at all. waa 15,000 20,000 oo aad ku shaqaysan karta weeyaan aad ku bilaabi karta shaqo oo Alibaba inta alaab uga iibsato aad ku sii iibin karta mataqaana caalamka aad ku sii iibin karto. laakiin maxay kugu xiraayaan waxay kugu xiraayaan inaad aad Mareykanka degan tahay credit scorekaagana uu fiican yahay soo ma garan. excellent-ga between wixii 670 ka bilaawdo ilaa ka koreeyo way siiyaan saan aan ka warhayo. haddana waxay ku sii xiran tahay based on mataqaana scorekaaga iyo lacagta ay ku siinayaan ku sii xiran tahay. aan waxa aan ka hadlaynaa waxa weeye waa 0 interest hatta there is no fee hatta kuma jirto. that's why ay mataqaana u fiican tahay inaad scorekaaga aad kor u qaado very important. so that's why you can start your own business hadduu scorekaaga fiican yahay with no interest adoo mataqaana wax xaaraan ay kusoo gelin. now I don't know inay kambaniya Soomaaliya jiraan. I wish inaan ogahay dad Soomaaliya oo sameeya inay jiraan waa laga yaabaa anigu hadda ma garanayo. laakiin haddii adiga aad garanayso kambani Soomaaliya oo credit repair ka sameeya bad credit ka sameeya hoos ku comment gareey. dadka Soomaalida ha ka faa'iidaystaan. always give your money where it belongs to lacagtaada si meesha mataqaana adiga wax kugu soo celinayo. marka hadday jiraan weeyaan haddayna jirin just google gareey mataqaana credit repair companies saddexda ugu waaweyn iyaga ugu koreeyo credit karma ka mid ah laba kala jiro wac $80 bish iska bixi creditkaada within 6 months ku soo cesho ama adiga kaliya dispute samey account ka furo. laakiin the first step oo laga rabo inaad sameyso waxaa weeye go to annualcreditreport.com tag reportkaaga soo print garayso arag historygaada waxa kugu jira meesha fiiri sababta u qaadan laahay sababta markaa guri aad rabto inaad kiraysato ay caqabad ku haysato sababta mataqaana bangi markaa furanayso kale caqabad ku qabsanayso gaari markaa iibsanayso sababta waxaa laga yaabaa within 6 months inaad waxan oo dhan aad ku clean garayso oo maaragtay everything oo historygaada ah oo clear ku soo baxo oo meesha aad tagto adiga lagu soo wacay lagu dhahayo lacagtaasaan ku haynaa aan ku deymino qof waxaa tahay mataqaana creditkiisa fiican yahay deynta bixiyaa tahay less mataqaana way isku xiran yihiin waxaan system the more social security numberkaada oo clear noqdo the more mataqaana ay kambaniyada deymaha bixiya ay kula soo xiriirayaan ay ku dhahayaan saas adigaana shaqadaada tahay inaad kala fiiriso kuwa interestiga judge garanayo iyo kuwa kale iyo inaad kala ogaato waxaas that's your job it's not my job. marka now one thing aan kusoo gabagabeynay insha allah waxaa waaye before I even go to the next one addresskaaga sometimes markaad foomamka buuxsanayso oo maaragtay Equifax iyo this that waxay ku weydiinayaan history addressyada meesha aad soo degtay su'aalaha lagu weydiinayaa. so waxaan inaad xasuusantahay muhiim weeye haddii kale account-kaaga iska kaa xiraya. tusaale waxaa rabtaa inaad ka furato Equifax oo kale waxaa rabtaa inaad account ka furato. marka account-kaa furanayso
su-aalay ku weydiinayaan gaarigii ugu horreeya aa gadatay, guriga aa soo degtay, this and that. Marka waxyaalaha inaad xasuusato aaday u fiican tahay boqolkiiba boqol. Marka asxaabta I hope in maaragtay aad ku baraarugsan tahay creditkaada. It's very important. Inta badanna sababta barnaamijka ay ugu dhalaysa waxaa weeyaan inta badan wax yar oo aan badnayn. Meeshan dadkan immigrantiga dad maaragtay bangiyo lacaga malaayiin dollar ama 500,000 ama 100,000 dollar ka qaatay ma aha. dadkan creditka laga hadlayay waxaa looga hadlayay waxyaala yaryar baa looga hadlayay creditkooda, waxyaala aan mataqaanaa micno lahayn, telephone bill iyo overdraft fee iyo gym membership iyo rentiga depositka wixii la isku afgaran waayey iyo waxyaala yaryar oo marka la isku soo dardaraba ayagoo 5,000 dollar aan gaaraynin ayaa looga hadlayay creditka. Marka that's why haddii aad ka daba tagto dispute samayso ay easy u tahay inaad creditkaada clean ka dhigto, then qofka maaragtay kale ee bankruptcyga xareynayo ama lacag badan maaragtay inuu lagu leeyahay kale sameynayo. Marka aad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol insha Allah. dadka soo join barnaamijka ula soo biiray waan idinkaga mahad celinaya insha Allah haddii la yiraahdo. waxaan idin dhaafayaa khayr iyo barwaaqo ayaa idin dhaafayaa. Sorry commentiyo badan ma fiirin, waa ka xumahay. insha Allah barnaamij kale aan soo diyaarin doonaa, I don't know when, laakiin markaan soo galo baan arkayaa live haddii la yiraahdo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm in the unknown, and I always say the best way to predict your future is to create it, not from the known, but from the unknown. What thoughts do you want to fire and wire in your brain? What behaviors do you want to demonstrate in one day? The act of rehearsing them mentally, closing your eyes, and rehearsing the action. The rehearsing the reaction of what you want, or the action of what you want. By closing your eyes and mentally rehearsing some action. If you're truly present, the brain does not know the difference between what you're imaging and what you're experiencing in 3D world. So then you begin to install the neurological hardware in your brain to look like the event has already occurred. Now, your brain is no longer a record of the past. Now it's a map to the future. And if you keep doing it, priming it that way, the hardware becomes a software program. And who knows? You just start acting like a happy person. And then I think the hardest part is to teach our body emotionally. The program is finished. The future will feel like ahead of the Brother, actual the program experience. is finished. I'm just So what does that listening mean? You audio can't and wait for listening, your so success you better to go. feel empowered. You can't wait for your wealth to feel abundant. You can't wait for your new relationship to feel love, or your healing to feel whole. Go. That's The program is old model finished. of reality of cause and effect. Waiting for something outside of us to change how we feel inside of us. And when we feel better inside of us, we pay attention to whoever or whatever caused it. But what that means then is that from the Newtonian world, is that most people spend their whole life living in lack, waiting for something to change out there. What do you mean the Newtonian world? Newtonian